السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. dadka waxay xumeeyaan kuwii garabka u ahaa markii ay dhibaatada ku jireen abaal qof galaa badan qof gudaayar. qisadan waa qiso yar oo cajiib ah. nin ka mid ah ganacsatadii taajiriinta ahaa ee Shiinaha ayaa booqasho ku tagay guri dabaq ah oo ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee dalkaasi Shiinaha. wuxuu halkaasi kula kulmay islaam da ah oo ka mid ah dadkii deganaa dhismahaasi. ninkan taajirka ah ayaa islaantiisii lacag dhan milyuun lacagta dalkaasi oo u dhiganta $160,000 Mareykanka ah. markii la weydiiyay sababta uu u siiyay lacagtaasi islaanta saboolka ahayd wuxuu sheegay in islaantani ay tahay tii ka dambeysay sirta guushiisa. taajirkii ayaa yiri muddo 20 sano ka hor ayaan jiifan jiray darbiyada iyadaana iga kaxaysay. waxay i siisay raashin guri waxayna ila raadisay shaqo. waxay kaloo isiin jirtay ayuu dhahay lacagta aan ku raaco tareenka. wuxuuna sheegay inuusan ilaabi karin sidii naxariista lahayd ee ay uga qayb qaadatay guusha maanta uu haysto. waxaana u celiyay abaalkaasi. islaantan daada ah way ilowday wiilkii garabka ay siisay, laakiin ninkii garabka la siiyay ma iloobin garabkii loo fidiyay.